diyaarada ay lahayd shirkadda duulimaadka Ethiopia Airlines oo nooceedu ahaa Boeing 737 kuna sii jeeday magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya ayaa saakayta ku burburtay deegaanka Bishoftu Riverside kaasi oo 40 kiiloomitir dhinaca koonfur bari kaga toosan caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa. Hadal ka soo baxay xafiiska shirkadda diyaaradaha Ethiopia Airlines waxaa lagu sheegay in diyaaradaasi ay dhacday 2 daqiiqo kadib markii ay saakayta ka duushay garoonka diyaaradaha Bole International ee Addis Ababa. diyaaradan waxaa la sheegay in ay la socdeen 149 qof oo rakaab ah iyo 8 ka mid ah shaqaalaha diyaaradda sida ay sheegeen saraakiil u hadlay Ethiopia Airlines. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed war qoraal ah oo soo dhigay bogga ay ku leeyihiin Twitter-ka waxa ay tacsi ugu direen ehelada dadkii ku waayay kuwii ay jeclaayeen shilkaasi. Dhinaca kale diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines oo nooceedu ahaa Boeing 77 oo xalay ku sii jeeday dalka Mareykanka ayaa waxa ku yimid qalqal dhinaca hawada ah xilli ay mareysay badweynta Atlantic-ga. diyaaradan oo ay la socdeen in ka badan 300 oo rakaab ah ayaa waxa ay cadaadis dhinaca hawada ah kala kulantay dabaylo xooggan. dhacdadaasi oo sababtay in ay dhaawacmaan 30 qof oo ka mid ah rakaabkii saarnaa diyaaradaasi. mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda ayaa la soo wariyay in ay dhaawacyo xooggan soo gaareen halka rakaab kale oo diyaaradda la socdan ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan. diyaaradan oo ku jirtay duulimaadkeedii caadiga ah ayaa iskaga kala gooshaysay magaalooyinka Istanbul iyo New York waxaana la sheegay in ay markii dambe ka degtay garoonka diyaaradaha John F Kennedy International Airport ee magaalada New York. tobanaan ka mid ah gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa xilli hore la sii safay garoonkaasi iyadoo dadkii dhaawacyadu ay soo gaareen la dhigay cisbitaallo ku yaala magaalada New York.